لا يدخل الجنة النمام قفك دردرالها كان هذا الكقادة كان كلن هذا الكلوجيو قلدا إدتك مدح اسكو جليه اسكو دفتا كان جنة ما قلب رسولك يدي لبا قبر النبي كريم دي علين قيم بقادو كلا تاجي لبدا قبر عدة كجرتا وكو عذابيهين عمل وينود سدا أوسي وين لقوم عذابيه كان واحد لقو عذابيه مركا طهارة آد اسكو مطهرين وبولي كادة اسكما حاجة جنجرين كان وحوها قف وحوها درا لا قف قدتك هذا الكوكل قاضبه هاي دتك اسكو درا لبدا عمل بلقو كلا عذابيه يا أبو رسولك يريد لك ويتري ويري نبى النبي قوي عليه الصلاة والسلام وحيري قبل هبلاي اللي يدابا درس كيجا صلاة بدن نبيتو كتا صوم كيجو نواب بدن يهي لكن جار كيجا عرب كود بتاع النبي الله بالكورن مرقاب النبي قلت تاس النار بيكجر تابو يدي كوكلا يداني كان هبلاي درس كيجا صلاة ديدونا ما بدنو شنتا وقت بإلى لسا صوم كيجو ما بدنو أو بشهر رمضان بيصونتا لكن جار كيجا كان نبض قلب يدي كورن النبي الله مرقاب النبي قلت تاس جنة يكجر تابو يدي جنة waxaa lagu mutaystaa cibaado badan hamoodine waxa weyn xaq ilaahay markaad ilaalisid waa faraa'ida xuquuqda bini'aadamkana ilaaliin haddaad xaq ilaahay aad ilaalisid oo xuquuqda bini'aadamka aad ku tumatid xaq ilaahay kaliya janno ku gali maysid ogow gaaladu xuquuqda bini'aadamka aad ba u ilaaliyaan oo waa ka ihsaankoodu adduunko dhan soo gaarayo laakiin maadaama xaq ilaahay ay dayaceen xuquuqda bini'aadamka ilaaliyaan janno ku gali maayeen naarun bay ku galayaan ogow haddaad muslim aad tahay oo muslimad aad tahay oo adigu isleedahay anigu ilaahay baan aqaanaa ilaahay baan caabudaya oo xaq ilaahay waan ilaalin xaq bini'aadamkana waa ku tuman haddaad leedahay ma taajna janno ku gali maysid ogow labada xaq ba waa in la ilaaliyo xaq ilaahayna ilaali oo xaq ilaahay waa maxay waa inaad ilaahay aad caabudaa oo cibaadada ilaahay aad u shariig yeelin dariiqada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna ilaahay aad ku caabudaa xuquuqda bini'aadamku ay kugu leeyihiin waa maxay ihsaan baad u samaynaysaa ihsaan haddaad ihsaan laga waayo oo nafcigaaga ummadda u gaari waayo sharka ilaahay adiga kugu abuuray ummadda meel kala fadhiiso ka hayso waa labada حقوق الضوء لبدنا لقوا إلى اليابة علماء دوليهن إحسانك إليهم وإساءتهم إليك إحسانك إلى الناس دتك إحسانك إلهي أديك وكوكو أبوري كدق مضى علمي با إلهي كبر علمي كبر أخلاق وناكسن باللقسيي أخلاق وناكسن مضى لا تحسعوا dhaqaala ilaahay ku siiyay dhaqaalahaaga ku xidhiidhi ummadda aqliga kartiba ilaahay ku siiyay aqligaaga kartidaada ummaddaada wax ugu qabo jaarka xaqiisa ilaali haddaad ihsaankii ilaahay kugu abuuray ummaddu ay ka weydo sharba haddana kugu abuurane sharkaaga ummadda meel kala fadhiiso oo adinkaagana ha ku dhibin oo carabkaagana ummadda ha ku dhibin وكنا بتقلي صحابي يمد النبي يجري يا رسول الله إلى دردارا مرقاب النبي يقول أمسك عليك لسانك عربك قبب النبي كويري وابكي على خطيئتك أديك قفك كاد عين اللؤي dadka kale dunuubtooda adiga lagu weydiini maayo adiga aakhira dambigaaga lagu weydiiniye meel fadhiiso naftaada intood xisaabisid dambigaad gashay la oy dambigaaga ka oy waliyasacka baytuka baa nabigu aqalkaaguna ha kugu fillaado aqalkaaga ku ekow reerkaagu ha dhaafin weeyaan reerkaaga saddexdaas waa saddex haddii mid walba la sharxo kutub dhan baa laga qorayaa amsak lisaanaka baa nabigu carabkaaga qabo carabka sidee loo qabanayaa khayr maahina sharba ha ku hadlin khayr هذا الخير كو هذا الخير قرآن كو أخري ذكري كو سماء استغفارتك كو بدي عربكاga ilaahay xuskiisa ku qoy ku qo
laa yazaalu lisaanuka radbun bidikri illah ku xidh carabkaaga waxaa lagu qayidaa oo lagu qabtaa ilaahay dikrigiisa. haddaad dikriga ilaahay ku xidhi weydid shaydaan baa ku hadlayo hadalkaasi meel kale kuu fogayn. carabkaaga qaba macnaheegu waxay ka dhigan tahay wixii aakhiradaada kaa dhaawacaya ka qabo, wixii aakhiradaada kuu toosinayana ku hadal, macruuf ku sheeg, oo salaada ku tuko, oo quraan ku akhriso, oo ummadda ugu nasteexee, oo islaax kaga hadal, oo ummadda ku xidhiidhi, oo diin ummadda ugu yeedh, oo diin ku baro, diina kaga shaqee. wabki calaa khati'aatika dembiga adiga kaa dhacayna la ooyi dadka kale dunuubtooda. walaa taziru waasiratun wisra ukhraa, dad kale dembi ay sameeyeen adiga lagu saari maayo ogow. adiga taadoonbaa qiyaamaha lagala xisaabtamiye. intaad adduunyada ku nooshahay naftaada xisaabiyo, khayrkaaga iyo sharkaaga habeen walba markaad seexanayso kafadda saar midkee badan. hadduu khayrku batana ilaahay ugu xamdi, hadduu sharkaagu batana ilaahay caza wajalla u noqo toobadkeen. aqalkaaguna ha kugu filaado, khaasatan haweenku. gabadhu aqal inay fadhideen sharaf ku leedahay. gabdhuhu aqalka intay joogto gabadha muuminaddu 20 ciyaala qayladooda waa u sabri kartaa, laakiin bannaanka hadday u soo baxdo dariskeyga, gabadh dariskeyga hadalkay ku tidhaahdo uma adkaysan karto, waa isku dhacayaan. ragguna waa bilcaks. raggu dibadda markay joogaan 100 nin hadalkooga waa u dulqaadan karaan, waa u adkaysan karaan, laakiin laba ubaduu dhalo aqalka dhexdeeda haddii la yidhahdo ku qabo oo ku seexi, labada qayladooda uunba odhanaya qayladooda iga aamusiiye, ma aamusiin karayo mana seexin karayo. waayo meesha aad kala joogtaan baa kala duwan. adiga gabadha muslimaday meesha lagugu talagalay waa guriga dhexdeeda sifaad waxaad ku leedahay aad dibadda markaad u baxda aanad yeelan karayn. ragguna dibadda markay u baxaan sifaad waxay leeyihiin aqalka markay dhex joogaan ayna yeelan karayn. raggu dibadda dulqaad way ku yeelan karaan, laakiin aqalka dhexdiisa ilmo yar uma dulqaadan karaan. gabadha muuminadda aqalka dhexdeeda 20 ciyaala way ku raalli gelin kartaa, oo mid walba way ku aamusiin kartaa, mid walba way ku seexin kartaa, wayna u sabri kartaa. laakiin dibadda hadday u soo baxdo islaan keliya qayladeeda u sabri kari mayso. waayo meeshan aad kala joogna ayaa kala duwan. meesha ininka layniigu talagalay waa guriga, meesha ragga loogu talagalay inay ka soo adeegaanna waa dibadda weeyaan. marka xuduud baa laynoo kala sameeye, qof walba xadkiisa ha ku sugnaado, oo ubadka guryaha ku tarbiyadeeya, oo gabdhaheenna asturka bara, asturka aqalka. ilmaha labadii wada dhalatay buu nebigu leeyahay hadday 10 jir gaadhaan ha isag seexinine, wiilkana meel gooniya seexiya, gabadha walaashiina meel gooniya seexi. tarbiyadda ilmuhu aqalka uu ka soo qaato ayuu bannaanka ula soo baxaa. dhallinyaradeenna magaalada joogta waad arkaysaan, dhallinyarada waad la yaabaysaa. dhallinyarada wax lala yaaba maaha, waayo waxaanu la yaabayn cirkana kamay soo dhicin, buurahana kamay soo dhex bixine, aqalay ka soo dhex baxeen. dhaqankan markaa dhallinyaradu bannaanka ay ula soo baxeen, aqalay kala soo baxeen. hadday aqalada dadka jooga ay hagaagsanaan lahaayeen, ubad hagaagsan baa aqalada ka soo bixi lahaa. maadaama waalidadii ay noqdeen kuwa diin aanan danaynaynin, ubadkiina iyakuna diin danayn maayaan ogow. marka allah inagu anfaco, allahna inoo dambi dhaafo. aan toobadkeenno oo dadaal baa inaga muuqdo, oo waa dadaalaysaan runtii. markas almarwa macallimiinta rag iyo haweenba runtii dadaal baa ka muuqda. dadaalkooga ilaahay dayaci maayo. jamaacadeenna iyo dadkeenna ku xidhanna ayadana dadaal baa inaga muuqda. sidaad khayrka u soo ajiibteen eed u danaynaysaan ininkuna sii kordhiya, oo mar alle markay kulamada caynka ay laynoo qabanayo keligaa ha imanine haweenka dariskaagaa soo wad, nahiblaayoyna mari, oo khayrka shaqadiisa ragga iyo macallimaadka ha ku eegina keligoode. diinta xil baa inaga saarana diinta ha ka wada shaqayno. hada wabillahi tawfiiq, wasala allahu calaa nabiyina muxamed. bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka, hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada, culumta shareecada islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga.
haddaba isqoristu waa ay socotaa hadlan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra